jira biyaha badda Mediterranean-ka ujeedka ugu weyn ee arrintan laga lahaana ee guddigan loo lahaana waxa ay ahayd in sawirro ay ka qaadaan deegaanada xuduudda ah sidoo kale la cadeeyo xuduudaha wadamadaasi ay leeyihiin iyo sidoo kale in maalgelin loo raadiyo sidii gaaskaasi laga helay goobtaasi ee isaga kaashan lahaa sidii loo soo saari lahaa loogana wada faa'iideysan lahaa wadamadaasi marka guddiga ku jira waxaa ka mid ahaa Masar, Israa'iil, Qobrus, Griiga, Urdun, Falastiin laakiin waxa lagu soo daray wadamada Faransiiska iyo Talyaaniga markii dambe guddigaas marka waxa si ula kac ah looga reebay dalka Turkiga iyadoo oo sida la sheegay marka ay Turkiga sida aan ognahay xeeb dheer oo ku leeyahay biyaha Mediterranean-ka marka la eego waxa sidoo kale laga reebay sida la sheegay Suuriya iyo Lubnaan inkastoo xilligaas la cadeeyay duruufo amni iyo mid dhaqaale labadaan dawladood in gabi ahaanba looga reebay sidaas oo ay tahay marka waxa la dhisay aagaas oo qolo kasta ay doonayso in ay bixiso laakiin aagaasi gaas waxa loogu magac daray East Med ama Eastern Mediterranean taasi oo loogu talagalay marka in gaaskaasi lagu soo saaro ama laga soo bixiyo biyaha Mediterranean-ka iyo goobtii laga helay lagana gaarsiiyo wadamada kale ee qaaradda Yurub qadkan ayaa wuxuu ka soo bilaabanaya Israa'iil wuxuu soo maraya Jamhuuriyadda Qobrus kadibna jasiiradda lagu magacaabo Crete kadibna Talyaaniga sidoo kalena waxa la sheegay in ilaa iyo 10 mitir cubic Talyaaniga uu soo saarayo sanadkii iyada oo laga helayo qarash gaaraya 7 ilaa 12 bilyan oo dollarka Mareykanka ah Ankara marka marnaba ma aysan qarsanin sida ay gabi ahaanba uga soo horjeedo dhaqangelinta mashruucan sababtoo ah qayb kamid ah waxa uu marayaa qadka ee wadooyinka ee Qobrus oo ah qadka waqooyi ee Qobrus oo Turkiga iyagana xuquuq ahaan sida la sheegay ay leeyihiin biyahaasi gaar ahaan Qobrusta dhanka Turkiga ay maamulaan waxa intaas sii dheer marka hadii uu dhaqan galo mashruucan in Qobrus iyo sidoo kale Griigaba ay faa'iido badan ay ka heli doonaan taasi oo aan